السلام عليكم كلنتي وعن داوديال ملك سؤال جوجتان كسر دوادا برنامج كيني أياها أو برنامج تطوع الله وأن نكريسو بهنو تلفزيون كشبكة ورباهن تشويله داوديال برنامج كنا أياها سيدي أنا قبل تيمبو وحن تطوعات كستيجن كريسو قد بنا dhalinyarada iyo markaasi dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada horumarka iyo doorka muuqda ka qaadanaya dhinacyada kala duwan ee horumarka dalka Soomaaliya waxaan inta badan diiradda saarnaa dhalinyarada ka soo muuqda hoggaanka dhalinyarada ka soo muuqda waxbarashada dhalinyarada ka soo muuqda ganacsiga iyo hal-abuurada ganacsi la yimaada sidoo kale dhalinyarada ka soo muuqda amniga iyo ciidamada oo kaalin muhiim ah horumarka dalka ku leh iyo waxbarashada hadii ahleed waxyaabahaasi oo dhan ayaan markaasi ku soo bandhignaa hadba qof ka mid ah dhalinyaradaas ayaan barnaamijka ku casuunaa dawadayaal toddobaadka waxaynu ugu martiya Sahre Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada iyo hablaha Soomaaliyeed ee horumarka badan sameeyay gaar ahaan xagga hal abuurka ganacsiga hadii ay aan lahayd ganacsiga ku saabsan in maskaxda la tuujiyo oo maskaxdu ay shaqeyso oo aan ahayn ganacsiga muuqaalka ama sida xooga ama sida dhaqanka hore oo hajir in loo ganacsado Sahre Cabdullaahi ku soo dhawaad barnaamijka aayaha ee shabakada warbaahinta Shabeelle aad baad u mahadsantahay Xasan waan ku dhawahay ma sha Allah aad baan waxa marka hore noo sharaxdaa aniga daawadayaashaba ganacsigan aad hadda ku jirto sida aad ku soo bilowday halka aad ka soo bilowday aad baad u mahadsantahay Xasan maanta waan ku faraxsanahay inaan soo booqdo idaacada ganacsigan maalin baan soo bilaabay laana waxa ahaa qof hadaf leh nolosheeda meel ay ka hormarisa in badan raadinaysay alxamdulillah xiliga ku soo biiray waxay ahayd 2016 bisha 10aad 25teedii waxaan ahaa gabar ganacsata business leh dukaan carwaale $15,000 iyo in ka sii badan oo businesska ku maal gashay yahay alxamdulillah waxaan gadi jiray haday shumac la iibiyo hadii daah la iibiyo hadii joodar la iibiyo rag iyo dumar intay xirtaan iyo intay isku guursadaan intaba waxaan ahaa qof iibisa haddana aan qofkii dukaankayga soo hor istaagtay waxay u malay jirtay muqdisho qofka ugu wacan ee nolol maalmeedka dhameystiran haysta inaan aniga aha laakiin aniga waxa laga yaabaa inaan buhurdi jirinba ana waxaan raadi jiray inaan noloshayda aad u horumariyo qoyskayga iyo qof soo muuqata aan noqdo alxamdulillah كمبنيga waxa igu soo casuuntay gabar walaashay ahayd dukaankayga dukaankan uga soo horjeeday business lahayd gabar xanuunsanaysay 4 sano Soomaaliya oo dhan meel ayna tigin dhaqtar oo san jirin laakiin macal asaf lagu yiri dalka dibadiisa aadaysa ma sheegin laakiin gudaha waxba kaaga ma qaban karno lagu yiri oo la hayday qanjaro shaqada gabay ma sha Allah dhacaydii sii day waayay alxamdulillah waxay imaaday company-gan oo gabar ma sha Allah naga iibsan jirta dhar customer-kayna ahayd ay maalin waxay ku tiri halkee ka timaadaa waad qurux badan tahay waad libisan tahay waxay ku tiri waxaan ka shaqeeyaa company ka shaqeeyo hanti iyo caafimaad waxay tiri aniga u baahan igee alxamdulillah way timiday markay qaadanaysay 4 cashe dawadii ayaa wuxuu ku bogsiyay ilaahay dawadii caafimaad dhameystirna ay ka heshay markii caafimaadka dhameystirna ay ka heshay dadkay la wadaagtay ee u bandhigtay ayaan shaqada kamid ahaa alxamdulillah markaan kamiriga warbixinta la iga siiyay aniga waxaan ka helay ugu yaraan 5 shay ee iga anfacda ee aan isleeyahay noloshaada wad ku horumari kartaa alxamdulillah hal su'aal baan isweydiiyay meesha dadka iska su'aalaan see u qabanaya shaqada imay dhib badan tahay iska su'aalaan aniga waxaan ku ira shaqada way anfacdaa waana shaqadii aan ka hormarin lahaa noloshayda vision oo mission baa lahaa waa shaqadii aan ka gaari lahaa yoolkayga dreamkayga mid aan ka ajiif karay lahaa waa iyada laakiin kasabkeedu xalaal ma yahay waxaan u baahanahay inaan kasabkeeda xalaal inuu xaqiijiyo kadib waxa la yiri naftaada mad xaakim ka taho shariicada islaamka miyad wax ka taqaana bas mashaayikhda ka hadlayso oo duuban ayaan ku tusinaa ayaa lagu yiri kadib waxaan ku ireed mashaayikhda way duubanta soo ma waxa lagu yiri ha waxaan nafteeda inaan xaakim ka noqdaan isku dayayaa laano qof islaam ahaan ay qaangaar ah diintana bardu wax ka taqaano iyo soo gudbiyo habka oo ganacsiga u shaqeeyo alxamdulillah waxa lagu yiri company wala iska diiwaan geliyaa diiwaan gelintaas oo ah $30 $30 kaas waxaad ku helaysaa baa lagu yiri waxbarasho bilaasha amba seminar bilaasha kadibna waxaad ku helaysaa Edcar International ee 224 dawladood inaad la ganacsato ku suurtagelin karay ayaa ka helaysaa sidoo kale waxa la yiri xafiisad xor u tahay oo ku shaqeysta ayaad ku helaysaa
waxaan ku dhahay servicekaas waa dheeri diiwaangelinta waan kasaya laanno iskuulka waa la iska diiwaangeliyaa jaamacadda waa la iska diiwaangeliyaa xataa dugsi quraanka fadhiisis baa la dhiibaan buuray diiwaangelinta xataa hadday diiwaangelin oo kaliya ay tahay diiwaangelinta waan fahmaay maxaa xiga waxaa laygu yidhi waxaad iibsanaysaa package kaasoo ah inaad adiga noqoto marketing inaad suuqgeeyo noqoto okay baan ku yidhi haddaba suuqgeeyaan ahay marketing qof business lahaan ahay taasna waan fahmay alxamdulilah kadib waxaan sii guda galay shaqadii aniga markaan member shirkadda kamid ah noqday weliba wax soo saarka amba package-ka la iibsadaa 3 package baa lay sharaxay halka ugu haysan baan iibsaday laana weel weyn wax lagu tugay Soomaalida kuma baa alxamdulilah marka halkii ugu haysanaa iibsaday alxamdulilah productiga markaas aan ka iibsaday wadaadkayga hooyadiis oo dhiikar 12 sano la noolayd ayaa product ku siiyay ilaahayga subxaanahu wa ta'ala in ka caafiyo dhiikarkii sidoo kale anigoo gaas iyo xasaasiye qabay ayaan dib u isticmaalay markaan imaanayay gaas iyo xasaasiyo ma u soconeen carabtu waxay ku mahmaahdaa asad dirahim asad hawa waxaan ahaa qof raadinaysa mani raadinaysa laakiin bardu caafimaadku waa muhiim markaan ogaada manigii haddana caafimaadkana waan ka helay alxamdulilah shaqadii waxaan gaarsiiyey 4 qofood baan gaarsiiyey oo kamid yahay saygayga Xuseen Maxamed Geedi qeyr Allah hasiyo aan in badan ku taameeyay shaqadan hadoo ila qaato inaan wadi karo in badan ka dhaadhicin waqti bay ugu qaatay laakiin alxamdulilah waan fahamsiyay 4 qofood maanta waxay marayaan ani 4 kaliya aan gaarsiiyay waxay marayaan 1480 qof ay marayaan system iga hooseeya waliba ka shaqeeya daafaha caalamka oo dhan ما شاء الله وحان سبب النقطة إن نلاشوا بدلان دد أدو بدن مهمة عن كمبنيجا مركز اللي يوصل إفاد كريناي عن كقطع يقوم مهم سنة كمبني هيد إن أنا قبل شيء قدام بيسو عن شقة سيكرو مهمة كلاك وحي هذا تام فريدم أفنشل فريدم إن كمبني كجاري كرو وقت حرية العق حرة أوكي مهمة كلاك وحي هذا كمبنيجا إلا قد سيستم أم بنتوك مركز هذا قد استو أنا كهاجر ربين يوم إن تاجناتو مالك استشقيسا تصالحان قبل الشقة يقول صدرتي إذا عاف ماضي أياتي لا يوم ماضي لا يصير يوم بيوم حل يجري فاضم إذا حسن وايد متى مركي متى إذا كجرت درجة له يقن أيد ستار صدق يسدح وطنه أفريقيا هل كي بقول $1 إيه هو كذا 1% يقول هذا تي لا يوم ماضي الحمد لله maalintii taxsiyadii waxa lagu yiraahday qoyskeedii ee dhikaarkiina waa dhaxaltooyo hadaba waxaad u keensataan cid idin manage garaysa wiilkeeda loo yaqaan Sharmaarka Xuseen Ismaan ku lahaa South Africa dukaaman jaamacad ka dhiganay ayaa la keenay soo u kala manage garayo akoonkii alxamdulilah maantana waxay heshay 3 habeen ka hor u soo dhacay maalmarin gaaraysa $15,000 waliba company-gan maalmarin taas waaye laakiin waa weekly business weekly bonus inta isbuuc ku shaqeysto adoo isbuuc ku qaadanay ayaa hadana waxaad helaysaa special awards haday tahay maalmarin qaasa alxamdulilah company-ga waa ilaahay dhaxaltooyo si fiican ayaan u fahmay adigoo dumar ah business hadana oo muuqda haystay oo aad dhigi karto lacagteedii shumacana ka soo gatay daahana ku soo gatay in laga iibsadaan raba lacagtaada waa arkay meel ku saarsaarantay sidee ku aamintay inaad lacagtaada geliso hadal okay horta qofka sidaas banaanba adduunku waxa jira negative iyo positive qofka markay humble tahay ana ay tahay positive haddana ay aragto wax badan ay ku qanacdo ani xafiiska maalinta soo warbixinta leega siiyay wuxuu ahaa 3 dabaq wuxuu ku yili iska siinaa dadka saara dhex taagnaa wuxuu gaarayay ugu yaraan 800 oo qof oo ka badnaa waxa ogaa inta soo Soomaali inay isugu iimaaneen meel micna dara sidoo kale waxa la tusay customary ma sha Allah cadeynay dadkii dalxiismankii ka qaatay dad maxaa waxa igu darayday naag Afrika ee loo yaqaan Pamela ee South Africa ee qaadatay diyaarad bay qaatay wali tusii customer area abaalmarin yes abaalmarin diyaarad ku qaatay waxa sidoo kale dawday dawladda Indonesia ee qaadanaysa intaas fil awards $170,000 ma sha Allah fil award maadaama caalamka arkay aniga waa qanacay xayawaan qancay waa gartay anigoo kale hadda waxa laga yaabaa Xuseen Maxamed Geedi oo kale odagaaga waay wax badan inuu ku samro jiraa iska qaado sax hadda anigoo kale
sida ugu qanci lahayd inaad maaragtay aan hawshaan gal okay bulshada aan qanciyay xuseen hal buu ka ahaa kuwa gartay wax sidaan kuu sheegay nadweegii waa badan yihiin 800 marka anigoo kale seel ugu qancina inaan waxa lagu qancinayaa qofka sideeda banaanba waxa la siiyaa prestation baa la siiyaa warbixina la siiyaa warbixintii markii la siiyo flow up loo sameeyaa flow up kaasoo ah qofka in xogta loo dhameystiro qofka hadba nolosheeda iyada inay horumar u gaarto jecel wax u muhiima haddii aragto way soo biiraysaa Soomaalida lacagna way wada rabaadeen lacagta aad loo jecel yahay dumarka inta badan markaad fiiriso businesska ama ganacsiga marka midka fiskalka oo aad ka maaragtay waaweyn sida dukaamada iyo baqarada marka laga soo tago ganacsiyada kale xoogaa waxaad moodaa inay aad ugu maaragtay ugu xaqiran yihiin maxaa isleedahay dumarka dhalinyarada waa loo waayay 2 dumar 5 3 4 dumar oo leeyahay ganacsato heblaayo waay ama businessman company hebel maxaa loo leeyahay okay alxamdulillah horta dumarka dumar bay u wadaagaan way kala dugan yihiin aniga 13 sano anigoo jira ayaa waxa la geeyay Sacuudi Carabiya waxaan ka shaqeynayay sayloonka amba qurxinta dumarka anoo waliba xillina dhiganayay madrasa ilaa thani tanawi kadib waxa la igaga soo filishay inaan ajnabi ahay darteed lacag fiican aan qaato xilli yarna aan galo darteed la igaga soo filishay simbri waxaan ku fikri jiray dadka magac leh aan aniga aqoonin laakiin iika aan ka sayo inaan aniga noqdo oo dadka la isku bara dadka dumarka waxaa ku jira dad aad u badan qaasatan Soomaalida hadda way ku bateen dadka wad aragtay dawladda bay kula tartamayaan waa gar dad hadaf la ku jira aniga hadafkeygii alxamdulillah qaarna waan ka gaaray qaarna way ii dhimayeen bulshada Soomaaliyeed ee dumarkana wixii aan aniga hadafkeyga amba aan qaarkood qabtay way qaban karaan laano aniga ganacsiga waxaan qabanayaa anigoo business kala ka shaqeynayo labada isku wada marna uurle marna umula ayaan plan your time waqtigii kala qaybinayay sana minute oo dhimanin markii aan sameeyay waxaan helay ma sha Allah wax badan ee iraali galiya ee kamid tahay global share maanta 224 dawladood halkii $100 iibo ka dhaca haday tahay Afrika iyo Asia waxaan ku leeyahay 4% ee meel laga shaqeeyana aan ogeyn akoonkeyga waa dhaxal sida hore kuugu sheegay hadii tii ilaahay ii timaado iyo hadii aan iska jiiftay intaba سيرتيد قف كست way u baahan tahay iyadoo dhaxal reedi karta inay soo noqon dhinta aan la tirsan waxa laga yaabaa in dhalinyarada ka hadlayna dhalinyaro badan oo Soomaaliya ku nool dumar ku jiraan inay maanta shaqo la'aan ay ku haysato gudaha dalka oo aysan maaragtay qaarkood xataa laga yaabo hadii wax isku dayaan inay shaqo qof u shaqeeyaan ama company u shaqeeyaan raadsanayaan maxaa dadkaas oo kaleeto kula talin lahayd oo aad fariinood si lahayd okay dadkaas waxaan kula talin lahaa hadayba noloshooda ay u leeyihiin rajo weyn waxaan ku dhihi lahaa system dhista laano company-ga waxa laga dhistaa system baa laga dhistaa systemkaas oo ah mid weli abadkiis jiri doona shaqooyinka la qabtaa adduunka waa 3 waa employee inaad adiga tahay shaqaale inaad tahay qof mehradla inaad adiga system dhisato midka ugu wanaagsan waa in system la dhistaa marka talada aan si lahay dadkayga Soomaaliyeed ee walaalahay waxay tahay waxaan aniga qabdo wad qaban kartiin system dhista sida aad noloshiina iyo nolosha in ka dambaysa aad wax ugu dheeftaan ma isleedahay muqdisho oo duruufaha ka jiraan ma ognahay iyo sida ay tahay fursado shaqo laga abuuri karaa yes adduunka waxa ugu fiican in shaqo la abuurto laakiin dadka waxa shaqo la'aanta lagu ridaa waxay tahay shaqooyinka la qabtaa ee Soomaaliya waxay ka yar yihiin 10% ardayda soo qalin jibsaan waxay ka badan yihiin 9% macnaha noo koos gareeyta ayaa waxay tahay dadka shaqada abuurta waa 5% waay saasirteed 5% maadaama ay yihiin 9% ma qaadin karaan saasirteed dadku waxay noqdaan shaqo la'aan waxa fikradda ku jira oo ah in shaqo uun aad shaqaalanimo aad raadiso balse aan la isku dayin in shaqo abuur adiga qofka nafteeda ay shaqo u abuurato marka waxaan dhihi lahaa qof kasta Soomaaliyeed ha isku daydo inay shaqo abuurato meesha ay ka raadin lahayd employee amba shaqaalanimo okay company-ga aad la joogtid iyo idinkoo ah dad hadda sida wax u fahansantihiin ilaa xad macquul ay gaarsiisan tahay inaad dhalinyaradaas u yeertaan oo aad siisaan talooyin iyo waayo aragnimo iyo sidii ay u dhisi lahaayeen isku daydeen inaad sameysaan tababar noocaas oo kale
waan sameynaa waliba waxaan sameynaa tababaro ayaan sameynaa seminaaro ayaan sameynaa waxaan sameynaa isku dayo fara badan ee loo yaqaan haday tahay xataa waliba xaafadaha home party in dadka guryaha jooga aan isu keena aan wacyigelin u sameyno laana waxa dhici karta qofkii oo dhalinyaro ah amba jaamacad ka soo baxay amba aan ka soo bixin in asiga kambaniga uu imaado oo ku qanco balse inuu kambaniga iska diiwaan geliyo amba oo ku soo biiro cidii aan ogeyn maasha Allah dadka markii waaweyn dadkii hore waxay yaqaanaan shaqadii la qaban jiray shaqooyinkii la qaban jirayna waxa bedelay teknolojiya casri ayaa bedelay laana tusaale hadan kaagu soo qaato telefoonka shaashada wuxuu meesha ka bixiyay mani shaqo meesha ka bixiyay wuxuu meesha ka bixiyay branchigii telefoonada laga diri jiray wuxuu meesha ka bixiyay dadkii warqada iyo qoro baqshada ku dhow boostada wuxuu meesha ka bixiyay dadkii taarolayaasha ahaa macna teknolojiyada waxay saartay shaqooyin badan ay meesha dadkii horena waxay ka saayaan shaqadii la qaban jiray xilliga shaqooyinkaas lacagta ku lagu heli jiray waxay ahayd xilligii 2,000 shilin Soomaaliya lagu heli jiray dambiil moosa laakiin biicado dhan hadda way isbedeshay markay kula laabteen prestation-kii la siiyay anna ay ku qanceen in waalidkii amba dadkii guriga joogay oo dhib ka soo gaaray ayaan aragnay kadib waxaan sameynay inaan xaafadaba aan ugu yeerno dadka sidaan wax kaleera ee cad aan u tusno oo xaafadii aan warbixintii ku siino sidoo kale inaan ugu yeerno xafiismanka aan dad badan aan tababaradii siino si ay maasha Allah in badan ay u qancaan لأن الصوماليين مثل كم قناة وحيتها إن قف كولال كذا قف كلا آمن تاعي لأنه وحي صامرين دباتوين هذا بدر يصامرين ولي كم يعرب ترمي لكن محارجين إن قف كستاء هملة بس بدل يسمى في الناس وحيا بعض وقتي قدام بينتي قبيدا برامج كسر جوبنا فرينت هذا قدام بيسا ولي بس قاسة دلنا يرادا جار هان دمر كدلنا يرادا هاد لو ذا جلاد محيته هرتا dumarka kaligood ma u baaqayo dhalinyarada u baaqaya laana waxaan ka dareemaa dhalinyarada ugu weyn oo dareemo waa ragga dhalinyarada ugu weyn oo dareemo runtii really haddaan runta ka hadlo waa ragga waxaan arkaa markii shaqooyinka la joogo inay u badan yihiin hadday tahay suuqa hadday tahay shaqooyinka aan hadda ku guda jiro inay dumarku u badan yihiin waliba dadka ka guuleysta naftirkeeda ay dumar u badan yihiin taasoo xogay dumarkii ay dhaadhuudii iyo ay iska ag fadhiyaan jartii iyo derbiyada marka dhalinyartoo dhan hadday tahay rag iyo dumar intaba waxaan ugu baaqayaa inay ku fikiraan inay system qurux badan dhistaan waliba haddii ay jecel yihiin inay aniga ila soo xiriiraan nambarkayga waa 8 Sahra Cabdullaahi Maxamed dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa waxaan haysanaa system adigoo lagu dhahaynin baajkee wadataa adigoo lagu dhahayn reer quraceed tahay iyo reer jeerinkee tahay adeerkaasi xildhibaan ma yahay adigoo lagu dhahaynin ma dheerta maswad gaabanta ma saddeedeed tahay ayaad waxaad bedeli kartaa noloshaada anna aad noqon kartaa qof miniin dheer anno aniga waxaan shaqaynayaa 2 sano iyo baran ka shaqaynayaa kambanigan haddaan xaqiiqatan ka hadlo waxaa ii soo dhaca wax badan ay Sahra Cabdullaahi aad mahadsan tahay waxay noogu marti ahayd barnaamijkeena aayaha oo toddobaadkan aynu markaa ku gorfeynaynay hal abuurada ganacsi dalka ka jira iyo fursadaha ay haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkeeni waa naga inta tan iyo kulantadana dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo Sahra aad mahadsantahay bye aad mahadsantahay Xasan shukran